gudoomiyaha Yiriso waa ku mahadsan yahay adeega ummadda Soomaaliyeed u hayo adeega ummadda Soomaaliyeed u hayo waa ku mahadsan yahay kelmaduna haday tahay meeqaamka magaalada Muqdisho haday tahay iyo gobolka Banaadir haday tahay waa shaqadiisi waa administrationkiisi waa mid uu duqa u ahaa hadaba halkan waxaan rabaa in maanta ka iraahdo gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaasna ah duqa magaalada Muqdisho ama caasimadda inaan iraahdo mahadsanid aad baad u mahadsantahay shaqada iyo wanaaga iyo hufnaanta aad ummadda Soomaaliyeed ee adeega aad ummadda Soomaaliyeed u hayso aad iyo aad baad ugu mahadsantahay shacbiga Soomaaliyeedna waa ka warhaya adeega aad u hayso iyo shaqada aad u hayso iyo wanaaga shacbi fara badan oo Soomaaliyeed oo ka mahadiyeen way jiraan intaas waxaynu meediyaha ka arkaynaa hadii la ku imaayo ummadda iyo adeegeeda inaad ku guda jirto inta meediyaha waxaan ka arkaynaa hadii la ku imaayo dad hadii la ku imaayo mas'uuliyadooda adiga ay ku saarnayd oo dulmanaa oo hadda ku imaayo dulmi aad meel saartay hantidoodii aad siisay oo hadii la ku imaayo aad wanaag hadii la ku imaayo ku soo dhaweysay qof cabanayo oo Soomaaliya oo hadii la ku imaayo ka cabanaya hantidiisa oo ka maqan ama gurigiisa oo ka maqan inaad adigu intaad iska xil saarto furayaashooda siinayso la xanuunsanayso la dhibtoonayso midka dulmiga wadana aad u hiilinayso kan dulmiga hadii la ku imaayo laga galay aad u hiilinayso inta waa noo muuqata inta waxa dheer in adeegii shacbiga Soomaaliyeed aad u haysay ayadana si wanaagsan iyo si hufan hadii la ku imaayo aad u qabanayso oo arkayno intii aad joogtay isbedelada ka jira magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ama caasimadda ummadda Soomaaliyeed isbedelada ka jira haday tahay xaq nadaafad haday tahay xaq dhisme haday tahay xaq bilic haday tahay xaq adeega bulshada intaas buu noo muuqdaan waanad ku mahadsantahay inkastoo ay tahay la shukri ala alwaajib inkastoo ay tahay waajibkaaga ahayd haddana iyadoo waajibkaaga tahay waxaad mudan tahay oo hadii la ku imaayo aad naga mudan tahay inaynu kugu niraahno waad mahadsantahay mana mudnid hadii la ku imaayo in lagu niyad jabiyo ma mudnid in lagu qalbi jabiyo ma mudnid hadii la ku imaayo in hadii la ku imaayo waxaad mudnayn hadii la ku imaayo ay dhagahayagu ku soo dhacaan intaas markaan ka baxo haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee social media adeegsada fadlan hay noo kala saarnaadaan qofka mas'uulka ah ee Soomaaliga ah ee waxtarka ah waa midka ay tahay inaynu dhiirigelino midka ay tahay hadii la ku imaayo inaynu hadii la ku imaayo qab iyo hamba jabina ma aha waayo inagu noo adeegaya qofka mas'uulka wanaagsan inagu noo adeegaya danteenu ka shaqeynaya maslaxadeenu ka shaqeynaya midnimadeenu ka shaqeynaya wada jirkeenu ka shaqeynaya dawladnimadeenu ka shaqeynaya sida daraadeed ma mudna dadka mas'uuliyiinta ah ee ummadan Soomaaliyeed u shaqeynaya ee aan ka shaqeysanayn ee u diyaarka inay u shaqeeyaan inaynu dhiirigelin xaq noogu leeyahay nooguma laha xaq hadii la ku imaayo inaynu hadii la ku imaayo aynu jaayfayno hadda waxaan maqlayo social media aan ku arkay waxaan dhageysto qodbad baan dhageystay anigu laftigeyga waa yaab Yiriso oo qolyaheena social media kamid qaybo kamid waxaan arkay qorqorahay oo hadii la ku imaayo ama ka hadlayaan arkay waan raadiyay waxaan baaray sababta markaan arkay waxaan arkay inay tahay wax un shaqadiisa la xiriiraba inay tahay wuxuba oo waajib u gudanahay ay tahay waxaan arkay isagoo leh waa sanadkii horumarka waa sanadkii nabadgelyada waa sanadkii cadaaladda waa sanadkii hadii la ku imaayo horumarka waa sanadkii isla xisaabtanka waa sanadkii hadii la ku imaayo bulshada Soomaaliyeed ay hore u socon lahayd waa sanadkii gobolka Banaadir waa sanadkii hadii la ku imaayo xuquuqda ama meeqaamka gobolka Banaadir hadii la ku imaayo la iska wareysan lahaa kelmadda uu eeday marka waxa weeyaan waa sanadkii xuquuqda gobolka Banaadir iyo meeqaamka gobolka Banaadir la iska wareysan lahaa waa sax waa waajibkiisa waa shaqadiisa waa hawshiisi waa gobolka mas'uulka ka ahaa dhibaatana male eragaas waana sax weey shaqadiisi kamid tahay inuu ka hadlo masiirka gobolka Banaadir inuu ka hadlo hadii la ku imaayo meeqaamka hadii la ku imaayo caasimadda inuu ka hadlo waayo waa duqi caasimadda
waana guddoomiye gobolka banaadir waana shaqadiisii wey inuu ka hadlana xaq buu u leeyahay waana shaqadiisii wey wax ku gaarana ma aha madaxweynaha ka hadla prime ministerka ka hadla golaha baarlamaanka ka hadla waa wax constitutional oo sharciga ah waana wax jira meeqaamka gobolka banaadir waa wax jira weeye madaxweynaheena sheegay waxa sheegay prime ministerkeena sheegay golaha baarlamaanka sheegnay dastuurkay ku qoran tahay ma fahantay laakiin meeqaamka ay yeelanayso caasimadu waa wax haddii ilaah ku yimahay golayaasha baarlamaanka u yaalla wey labada gole ee sharci dejinta ee baarlamaanka soomaaliyeed ee aqalka sare iyo aqalka hoose wax u yaalla weeye meeqaamka nooca uu noqonayo ay ka soo saarayaan ee ma aha wax haddii ilaah ku yimahay ama madaxweyne goynayo ama ra'iisul wasaare goynayo ama guddoomiyaha gobolka banaadir goynayo ama dad shacaba ay goynayaan ma aha sida dastuurka ay ugu qoran tahay ayay masiirkeeda waxay yeelan doontaa meeqaam gooniya ayay yeelan doontaa magaalada muqdisho ayaa ku qoran sidaa daraaddeed meeqaamka nooca uu yahay waxaa laga rabaa golayaasha ayaa laga rabaa golaha baarlamaanka laga rabaa labadiisa aqal baa laga rabaa in meeqaamka nooca ay yihiin iyagu ay soo fasiraan dastuurkana sida duuduubka ay ugu jirto la dhex garo oo la ballaariyo nooca meeqaamkooda noqonayo waa haddii la kulma waa shaqadiisi wey marka guddoomiyaha gobolka banaadir khadaf ma uusan gelin dhaqan danley kama muuqdo danley ma aha waa nin qaran waa nin ummadda soomaaliyeed u shaqaynaya sidaa daraaddeed waxaanu ayeedsannahay taageersannahay hufnaanta iyo adeega uu shacbiga soomaaliyeed u hayaanu taageersannahay shaksiyan anigu iima muuqato wax lagu dhaliilo iima muuqato wax haddii ilaah ku yimaayo aynu ku dhibaatayno iima muuqato haddii ilaah ku yimaayo wax haddii ilaah ku yimaayo qadaf ah oo ama qarannimada ama ummadnimada ama soomaalinimada ama musuq maasuqa ama haddii ilaah ku yimaayo dimindaabyo ah ama shisheeye ah oo uu dabada kula jirana iima muuqato waa mas-uulkaas shaqadiisa iyo xafiiskiisa sida hufan haddii ilaah ku yimaayo u wada ugana shaqaynayo aad iyo aad buu u mahadsan yahay halna aynu ogaano maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre baanu taageeraynaa dadka la shaqaynayana haddii ilaah ku yimaa waanu jaa-ifeynaynaa suurtagal ma aha qof kasta oo ummadan soomaaliyeed wax wanaagsan u qabta oo u shaqaynahaya wuxuu naga mudan yahay xushmuu naga mudan yahay wuxuu naga mudan yahay qadarin buu naga mudan yahay wuxuu naga mudan yahay dhiirigelin buu naga mudan yahay waayo yiriisow iyo ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasiir beyle iyo haddii la kulmaa wasiirka hawada iyo wasiirka qorsheynta iyo maama khadiijo intaas waa inta active-ka wey yaa oday u ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed baa oday u ah marka shaksi ma taageerayne waxa aynu taageeraynaa waxay tahay waa dowlad complete ah shaqadeeda aynu taageeraynaa qofkii marka qalooc sameeya qofkii waajibkiisa gudan waayo of course waa tilmaamaynaa sababtoo mulkiilayaashu waa inaga mulkiilayaashu waa shacabka soomaaliyeed wey dadka dowladnimada iska leh dowladdu waa shacabka soomaaliyeed laakiin intaas waa adeegayaal wey qof kastoo marka adeega ummadda soomaaliyeed si hufan oo wanaaga haddii ilaah ku yimaa u qabta waa mahadsantahay baan leenahay bremiyu leeyahay dhiirigelin buu leeyahay si uu labalaab haddii ilaah ku yimahay waxa uu noo hayo oo ummadda u hayo si uu ugu dhiirado ugu adkaado u labanlaabo waa in shacbiga soomaaliyeed ay tilmaamaan jaa-isana ay uga dhigaan inay haddii ilaah ku yimahay dhagihiisa maqashiyaan inay maqsuud ka yihiin qofka noocaas midka dibindaabyada ummadda soomaaliyeed ku ah ee qabyaaladda ka shaqaynaya siyaasiga qabyaaladda ka shaqaynaya siyaasiga qarannimada la dagaalamaya siyaasiga shisheeyaha ku daaban siyaasiga haddii ilaah ku yimaayo dantiisa khaaska u nool siyaasiga isagu kursi doonka ah siyaasiga isagu maslaxadda guud la dagaalamaya siyaasiga goobaya maslaxadiisa gaarkaana isagana waa la tilmaamaya ma kala fadila qof walbaba wixii uu haddii ilaah ku yimaayo beegto ayaanu miisaanka ugu shubaynaa u saaraynaa qof walbaba waxbuu beeganayaa mid baa xumaan beeganaya midna wanaag buu beeganaya kii wanaagga beegta
kafadda wanaaggaan u saaraynaa kii xumaanta beegta kafadda xumaantaan u saaraynaa kafadda xumaantaan u saaraynaa of course sidaas iyada weeye haddii la ku idmaa walaalahayga haddii la ku idmaa social media aynu wada adeegsano haddii la ku idmaa waxa wanaaga dowladnimada iyo ummadnimada iyo wada jirka aynu haddii la ku idmaa difaaca iyo taageerada aynu u wada nahay fadlan inaga oo haddii la ku idmaa wax toosinayna yaynaa wax qaldin inaga oo wax toosinayna yaynaa wax qaldin waa isugu kaaya mid maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare khayre ninka la yiraahdo yariisow golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada waxoo dhan waa isugu kaaya mid weeye mana noo kala fadilna kulligeed waxay noo tahay adeegayaasheenni bay noo yihiin adeegayaasheenni bay noo yihiin sidaa daraaddeed waa inaynu isku wadno isku ilaalino haddii la ku idmaayo isku ilaalino wanaaggoodana aynu ka wada shaqayno wanaagooda aynu ka wada shaqayno la shaqaynteeda aynu ku shaqayno haddii la ku idmaa ka warqabkooda aynu ka wada shaqayno dhammaantayana aynu noqono dad qarannimadooda taageeraya aynu noqono aynaan noqon dad shaksiyaad taageeraya shaksi inaan taageernaa macna nooma samaynayso wax macnaa oo ay samaynayso male shaksigu berruu tegayaa shaksigu berruu tegayaa shalay buu yimid berrina waa tegayaa shaksigu wax ka sukeeya waxaasaa jira oo inkastoo malakumoodka loo sameeya haddaad shaksi jeclaato ilaahay adigu wakiil kama ahid garantiina kama haysatid inuu shaksigaanu noolaanayo meeshaana fadhiyahayo garantii kama haysatid laakiin waxaad garantii ka haysataa inta adduun jiro inuu jirayo qaran soomaaliyeed inuu jirayo inta adduun jiro inuu qaran soomaaliyeed jirayo loona baahan yahay mustaqbalka awlaadda soomaaliyeed iyo jiilka dambe qof walbaba markaas iyadaa uu joogo inuu u dadaalo inay jiilkaasu noqdaan jiil qab iyo haybad iyo sharaf iyo qarannimo soomaali ku faana inay noqdaan oo ka dambeeya isaga ka dambeeya inuu u dadaalo waayo innagaba waa naloo soo dadaalay calankan buluugga ah haddii la ku idmaa shanta gees ee xidigtaale ee cad ee cirka u eg ee quruxda badan awooyaashan baa halkan usoo galay gumaysto kula dagaalamay magaceenna iyo qabkeenna ilaaliyey inaynu sharaf iyo inagoo xor aynu dhalano haddii la ku idmaa noo diyaariyey inagoo xor ahaan dhalan inagoo xor ah ayaynu dhalanay dalka yagana gumaystaa qaybsaday waxaa qaybsaday faransiis ingiriis talyaani bortugiis intaas ayaa dalka yaga soo martay oo gumaystay intaba waxaa la dagaalamay oo dhiigooda u huray oo ka diriray oo gobonnimadeenna u diriray oo inagoo xor ah si aanu u dhalanno awooyaashan baa u dagaalamay sidaas si la eg baa marka waxaa la rabaa qof walba oo soomaaliya xilligaa isagaa uu joogo inuu u dadaalo una dagaalamo jiilka ka dambeeya inay noqdaan dad iyagoo xora dhasha iyagoo sharaf la noolaada iyagoo cisi iyo qab iyo haybad leh haddii la ku idmaa ku noolaada dalkooda kuna faana soomaalinimada intaa weeye muhiimaddu yaynaan qof taageerin aynu taageerano qaran soomaaliyeed aynu taageerno yaynaan kala qaadqaadin ilaa isagu qofku uu qirto inuu dan leeyahay ilaa isagu qofku qirto oo muxuu ku qiranayaa ficilkiisa ayaa qiraya qofka danta qaaskaa leh ee danleyda ah ma noolaan karo muddo yar isma qarin karo wuxuusa isu qarin karin shaqaalihiisa isqabsanayaan kuwa shaqada kala dhexaysa isqabsanayaan qoortay isla gelayaan waa murmahayaan bannaankay usoo baxaysaa iyagoo ishaystaad arkaysaan markaas qofka danleyda isagaa bannaanka isu soo dhigaya laakiin ilaa hadda guddoomiyaha yariisow waa ku mahadsan yahay adeega ummadda soomaaliyeed u hayo waa ku mahadsan yahay kelmaduna hadday tahay meeqaamka magaalada muqdisho hadday tahay iyo gobolka banaadir hadday tahay waa shaqadiisii waa administrationkiisii waa miduu duqa u ahaa waa miduu guddoomiyaha u ahaa dastuurkeena ku taallaa in magaalada muqdisho ay yeelanayso meeqaam gaara ama status gaara ay yeelanayso oo golaha baarlamaanku uu sharci ka soo saari doono
sharci ka soo saari doono iyagaa la rabaa marka labada aqal baa la rabaa marka sharcigu nooca uu yahay inay fasiraan waa wax iyaga u yaalla waa wax dastuurka u yaalla waa wax u yaalla labada aqal oo baarlamaanka u yaalla wey ka hadalkeeda iyo magacawgeeda ka hadalkeeda iyo magacawgeeda madaxweynuhu waan ka maqalnay prime ministerka waan ka maqalnay wasiiraan ka maqalnay wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka maqalnay xubno baarlamaanka ka mid aan ka maqalnay marka taas intaasu la qabaa midda kale isaga waxaa usii dheer waaba shaqadiisii waa xafiiskiisii waa citigii uu haddii ilaah ku gudmaayo duqa ka ahaa waa guddoomiyihii gobolka of course magaalada muqdisho meeqaam ka sarreeya anigu ma garanayo inay tahay muraayadii midnimada inay tahay hooyadii qarannimada inay tahay maskaxdii ummadda inay tahay garaadkii ummadda inay tahay aqoontii ummadda inay tahay hantidii ummadda inay tahay maamuuskii ummadda inay tahay qarannimada soomaaliyeed calaamadeedii inay tahay meeqaam ka weyn oo anigu aan garanayo horta maba jirtaba totally mint aniga shaksi ahaan caasimaddu meeqaamka ay tahay inay tahay hooyadii qaranka soomaaliyeed inay tahay muruqii iyo laxaadkii iyo caqligii iyo maankii iyo aqoontii iyo taladii iyo difaacii ummadda soomaaliyeed halkay isugu tagtay oo maalkii ummadda soomaaliyeed uu galay muraayadeedina ay tahay meeqaam ka weyn anigu maba garanayo total mint ma garanayo laakiin guddoomiye yirisow yaa lagu jaa-ifeyn kelmadda iyada ah waa shaqadiisii waa haddii ilaah ku imaayo waa xafiiskiisii waa miduu duqa u ahaa waa gobolka mas-uulka ka ahaa wey waana ka hadli karaa si dastuuriyana si sharciya si officiala buu uga hadli karaa dastuurkayna ku qoran tahay wax weyn ma ah marka waa ku mahadsan yahay adeeggaa isaga ah uu ummadda soomaaliyed u hayo meeqaamkeedu waa caasimad ammaan ah meeqaamkeedu waa muraayadii qaranka meeqaamkeedu waa haddii ilaah ku imaayo hoygii ummadda soomaaliyeed meeqaamkeedu waa haddii ilaah ku imaayo muraayadii qaranka soomaaliyeed laga daawanayo tusaale adduunka marka aada joogto soomaaliya markaad tidhaahdo mogadisho baa lagu leeyahay laakiin cid ku dhahaysa ma jirto garawe cid ku dhahaysa baydhabo ma jirto cid ku dhahaysa kismaayo ma jirto cid ku dhahaysa hargeysa ma jirto laakiin every ajnabi ama meel kastoo aad dunida caalamka aad ka joogto where you from marka lagu yihahdo soomaliyan ka imid marka lagu yihahdo oh mogadisho miyaad ka timid baa lagu leeyahay mogadisho miyaad ka timid laakiin nobody ku dhahaya ma jiro baydhabo miyaad ka timid nobody ku dhahaya ma jiro kismaayo miyaad ka timid nobody ku dhahaya hargeysa miyaad ka timid ma jiro oo ajnabi laakiin every ajnabi wuxuu ku leeyahay ma muqdishaad ka timid that means inay tahay muraayadii iyo hooyadii qaranka ummadda soomaaliyeed inay tahay marka meeqaam kaa ka weyn maba jiraba meeqaam kaa ka weyn oo magaalada muqdisho ay maanta helilka aan siin lahaa anigu maba jirtaba meeqaam ka weyn kaa meeqaamka ugu wanaagsan ugu mudanna way haysataa intaasaan kaga baxay guddoomiye yirisow engineer yirisow aad iyo aad buu u mahadsan yahay qolyaha anaga social mediahan haddii xoogaa dhawaaq yar uu kaa soo gaarayna waanu kaa raaligelinaynaa apologies baynu kaa siinaynaa waxaan rabnaa shaqada wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed u hayso inay halkeeda kasii socoto sii laba jibaarto ummadda aad kala xaq siiso kan dulman aad qabato midka haddii ilaah ku imaayo madluumka aad u hiiliso midka wax dulmaya laftirkiisa aad u hiiliso haddii ilaah ku imaayo shaqadaadu ay noqoto midaasaada u wanaagsan ee noo muuqato ay noqoto inaad sii laba jibaarto ayaynu kugu dhiirigelinaynaa waana ku garab taagannahay dhammaanteenna waxaan ku garab taagannahay qarannimada soomaaliyeed iyo ummadnimada soomaaliyeed intaan noolnahay waa garab taagnaanaynaa ninkii ka bayra isagaa ka haray qofkii dalley doonaya oo wixiisa qaba isagaa banaanka imaanahaya annana waa sugaynaa taariikhdaana keenaysa banaanka ismana qarin doonaan dallaydu isma qariso bannaankayna imaan doonaan insha allahu tacaala biidni illahi kariim laakiin qof wanaagsan oo shaqadiisa wata inagu inta halkaan usoo fariisana dalley kama dhigayna ilaa asagu iska dhigo intaas waa intaas ninka la yidhaahdo yirisow intaasaan kaga baxaya insha allahu tacaala biidni illahi kariim waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan qodob yar isagana oo kooban
aada u kooban oo laba eray insha allahu tacaala inaan idhaahdo ku saabsan jubbaland ku saabsan oo ummadda reer jubbaland ku saabsan oo ku saabsan haddii la kulmaa maamulka jubbaland ku saabsan sidaad ogtihiin aynu wada ognahay dhammaantood waxaa noo muuqanaya haddii la kulmaayo madaxweyne axmed maxamed islaam hogaamiyaha haddii la kulmaayo maamulka kilomitr 5 ee haddii la kulmaayo 7 sano 5 kilomitr fadhiyay oo haddii la kulmaayo hub iyo dhowr gaari iyo haddii la kulmaayo afmadow geeyo oo buu aalan u socdaa xaggan u socdaa 7 sano kadib hadda ugu yaa 7 sano kadib su'aasha ka dhalanaysa waxay tahay 7 sano hubkaas iyo ciidankaas xagee lala fadhiyay 7 sano ka hor waxaad qaban weyday inaad saaka qabato suurtagal ma tahay cuuriyaan baan ahay anduula Soomaaliya marka waxay dhashay arrintaas waxay dhashay shacbiga Soomaaliyeed u sheegaya buu aalan qabanaya waxay dhashay haddii la kulma afmadow oo figaysan bay dhashay waxay dhaxashay haddii la kulma arrintaas magaaladii afmadow iyo shacbiga deganaa inay go'doon yihiin oo quraanjo lagu jafay oo al-shabaab lagu jafay oo afarta gees ay ka fadhiyaan oo hadda cunadii iyo raashinkii iyo haddii la kulma quutul daruuriga aysan u soo geli karin wuxuu xoreeyo iska dhaafay buu aala iska dhaafay dhibaatada uu soo jiiday oo kaliya inuusan wanaag ka shaqeynayn haba yaraatee wax wanaag uusan ka shaqeynayn ficilku qaadaba dadkii afmadow ee deganaa ee Soomaalida ahaa ee ummadda ahaa ee halka ku noolaa ee haddii la kulma ganacsigoodu xataa haba ku dhib qabaare shabaab u soo dhaxmarahay oo quutul daruurigooda helahay oo ganacsigooda helahay maanta inay go'doon yihiin oo shabaab afarta kooraba oo ka fadhiyo oo magaaladii wax galahay iyo wax ka soo baxay midna is jirin isaguna uu diyaarad ku tagay inuu baakin ka dhigto xataa aamini waayo diyaaraddu xataa inuu soo noqoto uu aamini waayo wuxuu ku leeyahay marka buu aalan qabanaya ku leeyahay waa ruwaayad weeye waa lugooyo weeye waa ummadda iyo isku dirkeeda weeye waa ummadda iyo dhibaataynteeda weeye waa wixii aan horay u sheegaynay weeye oo uga digaynay oo ummadda Soomaaliyeed uga digaynay weeye oo lahayn haddii la kulmaa hogaamiyahan waxaa kaliya u haray waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed qabyaalad in loo abaabulo si ay isu laayaan qabiil markii uu noloshooda la dagaalamay markii uu tacliintoodii la dagaalamay markuu caafimaadkooda la dagaalamay markuu maamul wanaagooda la dagaalamay markii uu dhaafi waayey 7 sanadood 5 kilomitr uu dhaafi waayey meeshii ay ahayd dadkaas Soomaaliyeed in mustaqbalkooda iyo wanaagooda iyo dawladnimadooda iyo midnimadooda iyo qarannimadooda iyo awlaadda iyo haddii la kulma tacliinta iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo wadooyinka iyo khayraadka iyo kalluunka iyo warshadaha iyo maalgashiga laga shaqeyn lahaa waxa uu ku mashquulay hogaamiyahaas 7 sanadood la dagaalanka qaranka Soomaaliyeed u shaqeynta haddii la kulma shisheeyaha u shaqeynta tikreega haddii la kulma hantida iyo maalkii haddii la kulma ka soo baxaysay haddii la kulma dekada in gabra haddii la kulma lagu masruufo akooma loogu shubo in haddii la kulma dhuxul iyo xaaluf haddii la kulma la shido calooshayda iyo maxaan cunaa intaas ayaa ku filaatay intaas kaliya ku filaatay halka uu haddii la kulma 7 sanadood uu la dagaalamayo qaran Soomaaliyeed midnimo Soomaaliyeed wadajir Soomaaliyeed dawladnimo Soomaaliyeed uu la dagaalamayo 7 sano markay hadda dhamaatay hadda ayuu wuxuu naf ka dayayaa markii Gabre la waayay markii Kenya la waayay markii cid kale la waayay haddu marka wuxuu bilaabayaa inuu haddii la kulma qabyaalad dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland u abaabulo oo qabyaalad la isu laayo oo qabyaalad si asagu hadda kaas uga helo cimri dheer inuu uga helo laakiin waxaan leeyahay shame on you xishood dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland waxaan leeyahay walaalayaal isku dan baa tihiin isku xanuun baa tihiin isku rabitaan baa tihiin waxaad u baahan tihiin qarannimo Soomaaliyeed waxaad u baahan tihiin midnimo waxaad u baahan tihiin nabad waxaad u baahan tihiin wadajir
waxaad u baahan tihiin awlaadiina oo hesha tacliintii asaasiga ahayd oo lacag la'aanta ahayd inay hesho waxaad u baahan tihiin caafimaadkii baad u baahan tihiin waxaad u baahan tihiin dalkiina iyo beerihiina iyo maalgashi baad u baahan tihiin waxaad u baahan tihiin ummad isku tolan oo walaalo ah oo wax wada qabsata oo qaran Soomaaliyeed yaad u baahan tihiin oo baahidiinu waa intaas weey baahidiinu waa intaas weey Axmed Madoobe inta laga helo inta Axmed Madoobe laga helo waxa laga helaa midnimada laga helaa wada jirka laga helaa walaalnimada laga helaa wax wada qabsiga laga helaa qarannimada lagu helaa dawladnimada lagu helaa sida daraadeed waxa ina wada anfacaya waa dawladdu isagana waxaan leeyahay axmedna waxaan leeyahay axmed 7 sano ha kugu filaato 7 sano ha kugu filaato cibri qaadashana ha kugu ahaato cibri qaadashana ha kugu ahaato Cabdiwali Cali Gaas ma joogo maanta kii ugu dambeeyay Cabdiwali Cali Gaas ma joogo Shariifna ma joogo waxa kula quman oo kula gudboon oo talada oo rasmiga oo wanaaga waxay tahay mar haddaad og tahay laba qof inaysan ku dooranay mar haddaad og tahay laba qof inaysan ku rabin mar haddaad og tahay cid ku dooranaysa inaysan jirin waxaa quman oo wanaagsan ummadaas inaad wanaagooda ka shaqeyso wada jirkooda ka shaqeyso wax wada lahaanshahooda ka shaqeyso horumarkooda aad ka shaqeyso uguna asxaan samayso oo maxaad ugu asxaan samaynaysaa adigana waa kuu dan dadka iyo ummadda iyo deegaankana waa u dan inaad is-cashisho taasaa dan ah adigina sharaf kuu tahay ummaddayna sharaf u tahay waayo waxaad og tahay adiguna og tahay aniguna aan ogahay dhammaanteenna isla ognahay cid ku dooranaysaa inaysan jirin ku dooranaysaa inaysan jirin macnaheeduna ma aha Axmedow inaad ree hebel adigu tahay oo lagu diidan yahay ma aha ee waa 7 sano iyo ficilka aad ku jirtay iyo nooca uu yahay iyo waxqabadkaaga waayo waxqabadkaaga wuxuu noqday dhuxul aad jidato oo al-shabaab kala shaqaysato iyo la dagaalanka qaran Soomaaliyeed waxaan inta ahayn oo dadka reer Jubbaland aad u qabatay ma jiraan yaase ii sheegi karo qofka taageera Axmed Madoobe ee taageero u ah ma ii sheegi karaa waxaan inta ahayn uu qabtay waxaan inta ahayn oo uu qabtay ma noo sheegi karaa nooma sheegi karo marka maadaama aad og tahay laba qof oo ku dooranaysa inaysan jirin cid ku rabtaana aysan jirin ummadana waxaa badbaado u ah adigana kuu badbaado ah wanaagna kuu ah sharafna kuu ah karaamana kuu ah hadda wax unna ay wadilaha kuweed maa kuu harahayaan inaad is-casisho waayo tilaabadii aad qaadaba waa fashil tilaabadii aad qaadaba waa dhibaato tilaabadii aad qaadaba waa ummadda dhibkeeda bu'aale afmadow figaysan bay dhashacaaw wataa afmadow figaysan aysan cunadu geli karin aysan geli karin gaadiidku geli karin aysan cid u gudbi kartaa jirin aysan cid ka soo bixi kartaa jirin askarta laftirkeeda aad diyaarada ku geysay haddaad bu'aale xoreynayso bu'aale haddaad xoreyn karto ood bu'aale xoreyn karto maanta 7 sano ka bacdi aad xoreyn karto maxaad askar inta Kismaayo diyaarad uga qaaday 120 kilomitir buu jirtaa afmadow 120 kilomitir bal Soomaaliya ruwaayadaas bal arka inay waxaanu ujeedo kale yihiin oo arrin kale yihiin oo dadkaas iyo go'doonkooda iyo dhibaatadooda in laga shaqeeyo ay tahay bal arrinta u fiirsada afmadow iyo Kismaayo waa 120 kilomitir 120 kilomitir waa فهمت 120 كيلومتر 120 كيلومتر marka inta la mari waayay oo la tagi waayay askarta garoonka diyaaradaha Kismaayo inta diyaarada loo qaaday afmadow lagu geeyay ma Kismaayo afmadow inta u dhaxaysa lagu maro Kismaayo afmadow inta u dhaxaysa ma lagu maro askarta lagu qaadahay diyaarada oo laga dejinayo afmadow waa ruwaayad weey arrinkaas marka waxay dhashay askartii Kismaayo laga qaaday ee afmadow laga dejiyay iyo sagaalkii baabuur hadii Ilaahay ku widmaayo meesha la geeyay waxay dhashay bu'aalan qabanaynaa bu'aalan aadaynaa bu'aalan waxaynaynaa bu'aalan soo taabanaynaa bu'aalan ka saaraynaa bu'aalan aadaynaa waxay dhashay afmadow oo figaysan aad iyo aad baan uga xunnahay shacbiga Soomaaliyeed ee reer afmadow dhibaatada Allah ka dulqaado wiilasha yararkaana waxaan leenahay
ummadda Soomaaliyeed cunaqabataynta ha laga daayo dadkan waa shacbi waxba ma galabsan ummad Soomaaliyeed weeye dadka Soomaaliyeed ee la go'doominayo magaalooyinka Soomaalida la go'doominayo ogaada waa hooyooyin Soomaaliyeed ogaada waa waayeel Soomaaliyeed ogaada waa ummadan ma aha dad hubaysan dadka hubaysan waa taqaanaan meesha ay joogaan ciidanka hubaysan waa taqaanaan kuwaas dilaa kuwima ay tahay dilaa kuwima inaad iska hortimaadaan laakiin dad shacaba in la go'doomiyo xeer qaba ma jiro xeer islaamna ma qabo xeer gaala ma qabo xeer dagaal ma qabo intaas oo dhan ma qabaan aad iyo aad baan idin salaamayaa intaasna waxaan ku tuurayaa Axmed Madoobe intaan ku tuuray shacbiga Kismaayo degan magaalada Kismaayo degan xaqiiqatan waa shacbi hadii la ku maayo dhiban way aad u dhiban shacbi aad u dhibana muddo 7 sano aad u dhiban xabsi korka ka furan ku jira hadii la ku ma aan xor ahayn hadii la ku ma caburuna ay ka jirto qofku uusan aragtidiisa iyo dareenkiisa uusan cabiri karin qofku uusan dareenkiisa iyo aragtidiisa uusan cabiri karin hadii uu cabiro ay dhimasho tahay xabsi tahay jirdil tahay masaafurin ay tahay xaqiiqatan waxaan anigu iska leeyahay ma aha waxaan anigu iska leeyahay ma aha evidence waxaan lahayn la ma sheego waxaad arkayseen xildhibaano la soo masaafuriyay oo reer Jubbaland ah waxaad arkayseen hadii la ku ma ugaasyo la soo masaafuriyay waxaad arkayseen nabadoono la soo masaafuriyay waxaad arkayseen dad shacab oo la soo masaafuriyay waxaad arkayseen shacab hadii la ku ma aragtidiisa u dhimanaya waxaad arkayseen shacab aragtidiisa loo jirdilahayo fiyaad ku xiran intaas buu wax jira weey haddaad u baahantiin YouTube kaad ka helaysaa dhammaan wax anigu aan iska leeyahay ma aha wax masabida ma aha wax aan ku dulmaya ma aha sidaa daraadeed dhammaanteen haddaan nahay shacbiga Soomaaliyeed ee xorta ah ee aragtidooda hadli kara waxay u baahan yihiin dadkaas hiil bay u baahan yihiin degmada Kismaayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan hiil bay u baahan yihiin inaga codkoodii inaga aragtidooda ku hadli karna inaga hadii la kulma dareenkooda gudbin karna inaga cadilkooda gudbin karna haddaad maqli jirteen magafaha Liibiya haddaad maqli jirteen ee dadka laga soo badbaadiyo Kismaayo u baahan hadii la kulma magafihi Liibiya oo u baahan xabsigaas in dadkaas hadii la kulma laga badbaadiyo aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin waa mahadsantiin haddii qof laba eray wax ku darsanayo shacbiga Kismaayo waxaa leeyahay dul qaata insha Allah taala biidnillaahi kariim isbedelku waa daruuri waana dhacaya insha Allah taala insha Allah wuu dhacaya Soomaaliduna waxay tiraahdaa xanuunku wuu soo degdegaa xanuunku ama cudurku wuu soo degdegaa laakiin caafimaadku wuu soo daahaa waynu xanuunsanay dhammaanteen Soomaali haddaynu nahay waynu xanuunsanay caafimaadku marka si degdeg ah u xanuunsanay caafimaadkuna wuu soo daahaya insha Allah wuu soo luudaya marka insha Allah taala isbedelku wuu imaanaya Kismaayo imaanaya Bu'aalu imaanaya Afmadow wuu imaanaya Badhaadhu imaanaya Qooqaani wuu imaanaya Dhoobley wuu imaanaya Garbaharey wuu imaanaya Buurdhuub wuu imaanaya Luuq wuu imaanaya Saakow wuu imaanaya Bu'aalu imaanaya Jilib wuu imaanaya Tajuum wuu imaanaya Sablaal wuu imaanaya meel uu ka maqnaanaya ma jirto insha Allah taala wuuna soo gaaraya insha Allah taala sida ugu degdegsiyaha badan sanadkan gudihiisa insha Allah taala isbedel midnimo wada jir walaalnimo dadka reer Jubbaland meel kasta oo ay joogaan degmo kasta oo ay ku sugan yihiin iyo goob kasta oo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa ilaaliya midnimadiina ilaaliya wada jirkiina midka danaystaha ee beelowga ah ee hadii la ku ma dantiisa qaaska wata ee idin leh waa reehbel iyo reehbel baa soo duulaan iyo reehbel baa anaga nagu duulaan iyo reehbel baa anaga na raba waa beentii waxa uu ka dhaxraadinaya waa maslaxadiisuna waxay ku jirtaa dhiiga iyo dhibaatada iyo shacbiga Soomaaliyeed oo dhiig isku daato noloshiisa waxay ku jirtaa idinkoo isdila idinkoo islaaya idinkoo isfaquuqa idinkoo isdhibaateeya idinkoo islaaya idinkoo curudyadiina iyo wiilashiina oo midba midka kale taxabada ku dhufto reehbel baa tahay u dilo noloshiisa ku jirta waa farxadiisa
ونولشيسا وشريتان كيسا بابئين وحكستو أو بابئين وحكستو أو دبودعين وحكستو أو ليد نمدينا وحكستو أو قبح مدينا وحكستو أو صومالي نمدينا وحكستو أو قرن ملأنتنا ونولشيسا وي انت أصلا انت يكون عايسوا إذنك مركا وحين كلا دورانينا مركا وحين كلا دورانينا مستقبل أنت أبد كيجا نعيب كدحضة يدا نعيب كدحضة يدا هدي له يكون ما طلع حمضة شيء يسهل الكيسة قب حمضة هدي له يكون ما نن يدنتي إلى نكشق إنه إلى نكشق إنه بس لحد أولاد يدا ولا لماذا يدا وإذا الشركة يجا سومال لماذا يدا قرن لماذا دولة لماذا هرم مركا مصلحة تعليمته وحبرشة إيوه وهيلنت أبد كيجا وهيلنت أبد كسومالي تادم بعد أمانتين إنه وضع مضن تادم به أيها أمانتين إنه وضع مضن تادم بقوي مدة أينو دورينو تادم بقوي مدة شرفته أينو إسكا إلالينو نين دان له سومالي لو حيكون مع ماذا نين عدلن يوكو عدلن نين عدلن يوكو عدلن أحمد محمد إسلام وعدلية إسقانيس عدلية ما هم مركا إنه أمانتين نعدله إنه أمانتين نعدله معها محمود سيد آذن أحمد مذوبة عبد الرشيد شرن هدي له كود ما إنا شرق قليل لا هدي له كود ما رجع نوع عاصة ويل كقالي ذا كنا بتسقط الشوق قالي ذا هذا ورجع عدلن وين مركا نمان أيجو عدلن نمان أيجو عدلن خير شو بلانة يسن عدلن سومالي ذا كم ما نين عدلن يوك عدلن نمان قاسوا عدلن يجا عدلن يجا نفطه ذا عدلن يجا مقعد ذا عدلن يجا طلوع ذا عدلن يجا جرات كذا عدلي يجا نحريس كذا عدلي مركز سيدا درادين رج عدلان إني عدلان أو من لماذا النظر يو هديلا كود ما الصومالي لماذا النظر يو ولا لماذا النظر يو حوار ذا العشاء النجا يو وذا الشركة يجا إني عدلان معه absolute كفرويست نجاها مركز كفرويست نبض ينور الصومالي الله نولي ضدك الصومالي بيلو شجبا الله نولي عليه عاديات بالي دي سلام هيا يا كتير كاميرا كتير إن شاء الله فيري أدو تشرو قفلة بقى رأي وحربا إنه يراهدو كاميرا ده صوت عبد كاميرا ده صوت عبد أدو بهاي قف يراهد قف ربا إنه يراهد دور عليه أوكي قف ديار وأنا سكرين بار وقرتها إن شاء الله تعالى ضد يا موضوع مركلة تانو كده قدرنا إن شاء الله دي الله عود له وقلاده مهمة waxay maanta to engineering soo ahayd engineering soo ahayd inaynu hadii la ku dhiiri gelino una bahad celino inaguna aan dhaxdayada iswaanino oo hadii la ku aynu isu sheegno waxa wanaaga iyo waxa samaanteena inaynu isu sheegno oo waxyaabaha hadii la ku aan haboonayn laftirkayagu hadii la ku aan iska qabano oo noqono dad is qaban kara laftirkayagu aynu noqono ومركزتبا دينعا wanaaga wax ka eega aan ka eegin dinaca negative ka aan mar walba wax ka eegin mar walba waa inaan wax ka eegnaa dinaca positive ka inaynu mar walba taagnaana oo inaan negative ka mar walba aynaan aadin oo inuu best positive ka aynu ka eegnaa insha Allah ta'ala bidillah kareem dalayduna wax isqariya ma aha dalaydu iyada banaanka isu soo dhigta iyada hadii la ku idmahay iyada banaanka isu soo dhigto sababtoo Soomaalida waxay ku maahmaadaan يا دقن كهل بيجي أيدا إسشيجي دقن بيجي كهل أيدا إسشيجي دليدو أيدا ضدك إسو شاكته أيدا ضدك إسو شاكته ضدك ما أوجع قفك إنه دليه أنا ما أوجع كرو إذا ما أوجع كرتين قفك لما أوجع كرو لكن إسجع إسشيجه أيا إسشيجه أو معوز كشيجيه وحول تجعله يا من ماذا وحول تجعله يا وذا الشركة وحول تجعله يا الصومالي ماذا wuxuu la dagaalamayaa dawladnimada wuxuu la dagaalamayaa ummadnimada wuxuu amaanayaa shisheeye wuxuu caayayaa Soomaalida wuxuu diidayaa hadii la ku ma dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed wuxuu doonayaa dawarsiga iyo gacan horsiga isaga is sheegay marka Soomaalida hore waxa uu tiri doqon ka hadli iyada is sheegay marka dalaydu iyada is sheegta iyada halka soo fariisata iyada dadka Soomaaliyeed la dirirta iyada qarannimada la dirirta iyada wanaaga la dirirta iyada sharafta la dirirta iyada karaamada la dirirta iyada shisheeyaha dabada la gasha iyada hadii la kuna wax kasta oo wanaagsan oo ummadan Soomaaliyeed ay leedahay kule
shakhsiyaad baa iska leh hebel iyo hebel baa iska leh farmaajo iyo khayra iska leh ma fahamtay iyagaa Soomaaliya oo dhan waxay u yaqaanaan iyo dawladnimadaba farmaajo iyo khayra iyagaa u yaqaana ma garatay marka dalaydu isma qarin doonta iyada ku imaan doonta iyada ayaa ku imaan doonta adiguna ma taqaan anna ma aqaan qof kalena ma yaqaan marka ay nusugno dalay halkaas soo fariisanaysa waa helinaa dalayda annaga helina way noo imaanaysaa iyaynaan ka degdegin insha Allah ta'ala iyaynaan ka degdegin qof wanaag hadii la kuun maayo shaqadiisii iyo wanaagiisii iyo ummadnimada iyo adeegaaga ku hayana asagana iyaynaan dulmi ka gelin aad baan idin salaamayaa waad mahadsantihiin jamca mubaarak jamcaha iyo fadligiisa iyo khayrkiisa Allah ina siiyo ilaahay ha naga wada aqbalo ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogtana qalbigooda iyo qulubtooda Allah mideeyo qurunka iyo qabyaaladda iyo qabiilka iyo qoyskana Allah ka saaro waayo qabiil iyo qoys iyo qabyaalad waa lagu waayay qolo ku foostaan la waayay ya waalid badan buu wuxuu ka dhigay gabdho badan oo Soomaaliyeed buu asay u saaray ilmo badan oo fara badan oo Soomaaliyeed ba agoon noqotay wax kale waa laga waayay inta un baa laga helaa foorxo baa laga helaa waxa laga helaa qax waxa laga helay dulnimo waxa laga helay cisi xumo waxa laga helay karaamo darro waxaana u sii dheer qoys walba inuu tabay mid qabriga kaga jira miyuu tabay cid tabtay ma jirto nin walba oo qabyaalad u dhinto oo reebel u dhinto oo qof dalay ka shaqeeya dantiisa inta ka shaqeeyo reebel baan ahay hadii la ku ma ruux u dila ama u dhinto waxaad ogaanaysaa qof kale oo ku tabaya ma jiro ma jiro hooyada iyo aabaha iyo awlaadaad ka tagtay awlaadaaduna magacooda wuxuu noqonayaa agoonti shalayna waxay ahayd ilmo hebel bay ahayd gurigaas waa ilmo hebel laakiin magacoodiba automatically daqiiqada gudaheed waxaad u bedelaysaa guriga agoonta cid kale hadda kama warqabto guriga agoonta u bedelmaya ya agoontaasna adun baa ka tagay cid kale wax u ah ma jirto qabiilkii baan waxba u ahayn qoyskii baan waxba u ahayn weligiin ma aragteen ugaas Soomaaliyeed ama odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ama ugaasyada ama suldaamada qof walbo qabiil baad ka dhalatay bal su'aashan isweydiiyay oo baara oo si cilmiga u baara qabiil kasta oo Soomaaliyeed qabiil kale ku duula asagana agoon baa u joogta qabiilka uu ku duulana agoon baa u joogta waxaan idin weydiinayaa marka Soomaaliyeed oo idin weydiinayaa oo xaqiiq u baartaan ugaas kasta oo reer kasta ugaas u oday dhaqan u ah soo midka yiraahdo ma reer hebel aynu iska celino kuwa yiraahdo oo ka bilaabato Soomaaliya soo kuwa ay ka bilaabato ma asaga iyo siyaasiga iyo reer walba kiisa qablaha oo siyaasiga afku dhiiglaha qablaha ya agoontii kuwa u dhintay hadii la ku reer hebel u dhintay daryeel ma siiyaan ma jiraa agoontii hadii la ku halgamayaashii qoyska ama qabiilka agoontii ay ka tageen kuloojooyin ma leeyihiin lagu xanaaneeyo ma leeyihiin oo lagu xasuusto oo lagu xurmeeyo halyeeyada qabiilka agoontii ay ka tageen kuloojooyin lagu xurmeeyo ma leeyihiin oo tacliin iyo waxbarasho iyo xanaano iyo hadii la ku hoy nadiif iyo ka warqab iyo xaasaska warqab ma la siiyaa oo maxaa loo dhimanayaa marka oo hadda maxaad u dhimanaysaa ya laakiin haddaad dawlad u dhimato oo qarannimo u dhimato ya ood qarannimo u dhimato xuquuqdaaduna ma go-ayso awlaadaaduna daryeel bay helaysaa dhimashadaada lagu maamuusayo adiga dhimashadaada aad qaran u dhimatay ama ummadnimo u dhimatay ama Soomaalinimo u dhimatay ama adoo hadii la ku gurigaaga iska joogo qaranka u shaqeynayay aad u dhimatay ya lagu maamuusahay ilmaha daryeel u helaya oo dawladda uga warqabi kartaa aad iyo aad baan idin salaamay waa tusaale yar oo idin siinay qof walba qoyskaaga iyo qabiilkaaga inta soo baartid inta ka soo raadi in laga dhaxlo aad iyo aad baan u mahadsantiin waana ku mahadsantiin sida ila sheer gareyseen Cabdi Umar
اوكي عبد عمر بان سينيا ان شاء الله فضلا aniga taleefanka waxaan u haystaa dheer qofkii raba inuu ka qayb qaato gumaysidiid ina xasan ciise hanad iyo cumar cabdi baa iyo cabdi cumar baa ku jira taleefanka dheer u qabsada dabca haddaad u qabsataan ma suurtagal ma noqonaya laakiin dheer haddaad u qabsato waa okay okay cumar lama soo qaban kara ciise hanad baan ku dayayaa insha allah asagana waa la mid gumaysidiid gumaysidiid baa isoo raacay gumaysidiid waa kusoo qabta saa insha allah processor buu ku jira waa kusoo jirtaa hawada ma aqaan hadduusan ku diidi doonin laakiin taleefanka waa inaad dheerar u haysataa sidaa dheerarka aniga dheerar buu igu yaalaa sidaas baba toos inaad taleefanka u qabsato الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مواطن صوماليات gumaysidiid soo waan ku salaamayaa kal ilaab haliyey Soomaaliyeed bay haliyey Soomaaliyeed tahay saaxiib maadaama aad tahay nin nabad iyo nolol ah annagoo dhan wada taageersan nabad iyo nolol ma garatay soo dhow walaal marka saaxiib dalkeena waa inaan wax u qabanaa mar waliba muxuu aan taageernaa madaxdeena sharafta leh qarankeena Soomaaliyeed waa lama huraan waa lama taabtaan ma garatay صح qofka marka leedahay aniga waxaan ahay saaxiib nin jacayl wadankiisa muxuu dalkiisa sidoo muxuu u hormariyo markaas lagu leeyahay farmaajo ma ku qabiil tahay mise qeyr ku qabiil tahay faan waa asaas haddaba aniga labadaba ku qabiil maahay gabadha hadda halka ka soo hadlaysa safiyo ila hadlayso dheeysa farmaajo qeyr ku qabiil tahay aniga maahay haddaba aniga qaran Soomaaliyeed baan ahay muxuu waxaan jeclaa qofkii dalkii wax u qabto dadkii wax u qabtay in adeerkii haduu yahay xitaa dooni maayo haduu dalkeena gadanay iibsanay ma faantay waa asaas marka ilaahay ha noo barakeeyo madaxda sharafta leh oo hadeerna siiyay muxuu ahaa indhaha aan kala qaadnay dawladnimada aan ku baray aniga dawlad ma gaarin horta ma ka say dawlad waxay tahay laakiin waa dawladii ugu horeysay oo wax qabadkeeda si toos aan u arko intaan muxuu aqaan gaarsanaa ma faantay waxay qabatay waliba aan kugu daro haye aan kugu daro haye wax qabadka muuqda oo dawladda Soomaaliyeed maanta ay muuqda ee shacbiga Soomaaliyeed uu marqaatiga ka kacayo xataa ma aha mid aan ku qanacsanahay ma aha xataa mid aan ku qanacsanahay ama aan qalanno ma aha ma garatay sax wax inta ka weyn oo ka wanaagsan baan sugaynaa rabnaana inaynu gaarno insha Allah saaxiib horta aniga waxaan joogaa dalka Sacuudi Carabiya qaasatan caasimadda Riyaad safaaradda Soomaaliya halkan ay ku leedahay wallahi oromada baasaboorada ka soo qaaday jiray waagii horeeto muxuu ahaa qaamadaha lagu wato Sacuudiga waagii Xasan Sheekh Maxamuud iyo waagii Sheekh Shariif labadaba waan joogaanay dalkan ma garatay muxuu ahaa labadaba oromada ka soo qaaday jirtay oromadana la wada jirtay qaamadaha Soomaalida laakiin haddeer waa laga mamnuucay safaaradda si xoog leh u shaqeysaa qofka maxaabiista 5 daqiiqo muxuu ahaa isla markiiba waa la soo gaaraya si awood leh u shaqeysaa ma garatay oo dawladnimo ku jirto ma faantay xaqiiqda markaan ka hadalno laakiin waagii Xasan Sheekh Maxamuud qasam billaah dadku la bahdili jiray lacag iyo balaayaal laga qaadi jiray ma faantay صح adeer marka waa u jeednaa nabad iyo nolol waxay noo qabatay indhaha caad lagama saaro qofna qabiil laguma difaacan faantay qabiilna waxa ma aniga labadaba maahi laakiin waxaan jeclahay qarankeena dhismo wadankeena ku laabano intii carabna gumaysilaad ma faantay aad iyo aad u mahadsantahay fikirkaaga saliimka dhiibatay waxay qabteena annaga waa u jeednaa laakiin dadka xanuunsan oo meesha ku jiro waxaan dhihi lahaa saaxiib muxuu ahaa dalkaaga ku dhismo ayaa muxuu kaaga sharaf badan gabadhaadu carab ka xistay ama qof ajnabi ah gaal ka xistay waxaa kaaga sharaf badan wadankaaga ku dhismo muxuu ku hagaago dawladnimo muxuu annaga waxaan nahay dad dhalinyaro ah dalkeena noo dhismo waa lama huraan ina siiba dhalinyarada Soomaaliyeed ma garatay oday waqtigiisa wuu dhamaaday waqtigiisa odayaasha waqtigooda way dhamaaday laakiin anagayna sugayaan waqtigeena muxuu inaan garab istaagno dalkeena muxuu dawladnimada hadda soo laabatay heekelkeeda xaqiiqiyan aan fahamtay waan aragno maalin waliba xataa maalin waliba hawada Soomaaliya diyaarado cusub ku soo biiro maalin waliba every time waan aragnaa anaga khadkaas isticmaalnaa ma fahamtay cashuurta waxa loo qaadaa wadanka ciidamada way hagaagayaan shalay ugu dambeysay saraakiil ka soo degay Turkiga oo muxuu wadanka in wax u qabtaan jecel marka adiga maxaa ka celiya hadii aan leedahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur hebla fulana wala Cabdiraxmaan Cabdishakuur ana abtiya waa Xasan Sheekh Maxamuud abtiya waa hay mana doonayo mar raba saaxiib faan
mana rabo waayo sababtu waxay tahay aniga ninka qaranka wadanka dhiso ayaa ninkeyga ah marka waxaa maqli jiray hooyada mar walba ninkaa guursada horta aabbaha ah laakiin adeerka hadduu wax kugu qabo waayo saaxiib cidna laguma taageerayo saaxiib dadkii wax qabto ayaa muxuu ah annaga dalkeena muxuu ah annagaa jecel ma garatay baraada waa kasii baxaya aad baad u mahadsan tahay fikirkaagii iyo aragtidaada sidaad u dhiibatay insha allahu tacaalana dowladnimadu sideedaba haddaad dowladnimo maqasho dowladnimadu waa shacbiga soomaaliyeed wey khaasatan waa dhalinyarada soomaaliyeed wey maxaa yeelay shacbiga waddankan boqolkiiba 75 waa dhalinyarada soomaaliyeed wey marka mulkiilayaasha rasmiga ee dowladdan waa dhalinyarada soomaaliyeed wey marka dhalinyaro yaa nala khaldin dowladnimadan innaga iskale aynu ka ilaashano kuwa danaha qaloocan iyo masaalixda gaarka madaxdeena xitaa sharafta aynu ka ilaashano aad iyo aad baan kugu salaamaya haya adeer waa mahadsantahay kala ilaab haya waa mahadsan hanad cilad baa ku haysata baraada waana ka baxaya insha allah